بسم الله الرحمن الرحيم كسر هذا شبكة سم كودرس وأنا قاعد فتح عبد الله يكورس كيني جيت هاب أم بيك باكت waxaynu sii wadan doonaa casharkeena ku saabsanaa sidee looga noqdaa khaladaadka ama changeska ku sameeysid faylashaada marka labadan qaybood hore aan soo qaadanay oo midna wuxuu ku saabsanaa faylka yaala working tree-ga midna wuxuu ku saabsanaa faylka yaala staging area-da git add markaa tiraahid ugu dambeyn waxaan rabnaa inaynu ka noqono khaladaadka ama isbedel aynu ku sameynay commit-kaas oo aynu ama u bushkaraynay projectigeena oo live ka saaran oo bug noqotay amaba commit local kaaga taala haddaan in xasuusiyo working tree-ga marka aad doonayso faylkeena ka kaxaysid git add ayaa isticmaalaysid staging area-da geynaysid marka doonayso staging area-na ka kaxaysidna git commit ayaa isticmaalaysid sida aad uga dhigtid mataqaana commit ama repository-ga u geysid commit-ka ugu dambeeya marka waa screenshot project-gaaga inaad screenshot ka qaadid ama faylkaagaas inaad screenshot ka qaadid oo meesha ugu dambeysay uu joogay aad geysid waaye marka sidee looga noqonayaa commit-ki marka waxaad isticmaalaysaa git reset ayaa isticmaalaysaa shaadaas ayaa isticmaalaysaa shaadaas wax kale maaha waa encrypted id weeye oo ay iska leedahay commit walba marka haddii hiirkaagu ahaa commitka shanaad oo aad tirahdid shaaga kan gelisid wuxuu hiirku noqonayaa kii aa ugu dambeeya aad gelisay ayuu noqonayaa marka bal aynu eegno qaabka iyadoo live ah projectigeeni waa kan info labada step ayaa ku jira usernameskana labada username ayaa ku jira haddaynu isla socono bal aan eego git log aan one line dhaho marka hadda labada commit ayaan haysanaa kan waa initial commit iyo add new username hadduusan commitkan kuu jirin xataa waxaa samaynaysaa usernameska hal qof kusoo dar kabacdina commit kare waayo commitka sida loo sameeyo ama screenshotka casharadina hore aynu kusoo qaadana so hadda waxaan samaynaynaa hal fayl ayaynu khalad ku sameynaynaa kana waxaynu ku sameynayba wrong user ayaynu kusoo darnaa marka ugu horeysa waa in stagingka geynaa waxaan leynaa git add faylkeenin ama all baynu isticmaali karnaa haddii laba fayl iyo ka badan aynu ku darayno faylka stagingka ayaynu geynay waxaan leenahay git commit kabacdina minus message kabacdina waxaan leenahay hadda waa commit karaysay haddaynu statuska eegno wax fayl oo working tree-ga wax fayl oo mataqaana stagingka yaalla ma jiraan ama untracked ah waxaynu eegaynaa oo kale git loggeeni waxaa kusoo biray commit cusub oo la add new user marka commitkan sidee uga noqon kartaa waxaa uga noqon kartaa commitkan ka horeeya ayaa tegaysaa intan ayaa copy garaysanaysaa sha commit id-ga ama commit shaaga sidaa u taqaanid iyadoo dhan waa copy garaysan kartaa toddobada xaraf ugu horeysana waa copy garaysan kartaa haddaa loggan aad ka tagtid one line-ka waxaa kusoo baxaysa iyadoo dheer marka intan oo dhan haddaa copy garaysatid iyo haddaa toddobada ugu horeysa copy garaysa waa isku mid soo waxaan leenahay git reset kabacdina commit shaaga ayaad gelinaysa soo haddaan enter dhaho faylkii wuxuu ka dhigay unstaged working tree-ga ayuu yaalaa haddaynu statusku eegno waxaan isticmaalaya fallaadhaha faylkan waa kan waa modified faylkan sidee uga sii saari karaa inagoo isticmaalna git checkout-keeni caadiga ahaa git checkout all ba iska dhahnaba almost wuu ka saarayba laakiin mar walba git checkout-ka iska hubi all ha dhihin file name-ka geli ama username .txt oo kale haddii kale faylal kale yaalay ayuu kaa saameynayaa marka halkaan aad ayaa iskaga hubinaysaa waayahay taas waa commitka sida looga noqdo haddaynu haddeer aynu eegno show headkeeni ama commit history-ga eegno waxaa ujeedinaa wuxuu inoo joogaa add new username markaas waa marka aad ka noqonaysid commit haddana aad kasii noqonaysid working tree-ga marka commitkan aad reset garaynaysid hard ma ahayn oo faylasha iyo weli waxay kugu sii harayeen working tree-ga waayahay mar kale wax bedelinaa tusaalaan halkan waxaan leenahay wrong step ayaynu kusoo daraynaa kana waxaan kusoo daraynaa wrong user labadan faylba waa bedeshay waxaa isku daysay inaad commit garaysid git marka waxaan isticmaalnaa habka shortcode-ka ee git add iyo aad soo raacin kartid git commit so waxaan leenahay git add eedaas way taagan tahay message-kiina waxay taagan tahay mtaas kabacdina message ay gelinaysa waxaan leenahay new feature waxaad intuu la baxa dhow adigu waxay ku xidhan tahay company-gaaga policy-giisa ama adigu qaabka commit-ka ugu samaysid laakiin commit-ku waa inay micno samaysaa feature-ka kusoo dartay ama hadda waxaan leenahay tusaale add new user marka commit-kan user-kana waa khaldan yahayba infadanna waa khaldan tahay commit-ka oo dhan waa khaldan tahay waxaan rabnaa inaan commit-kan oo dhan ka noqono haddaynu loggeena eegno commit-ku waxay noo taagan tahay add new user marka tan ka horeysa ayaynu copy garaysanaynaa oo ahayd
an user hadda labada commit oo ujeedaa inay isku noqdeen fariin khaladaadkaas waa khaladaadka dadku sameeyaan waa ina username-ka kale ku dartaa aniga waqtiga waa khaldamay marka kan ayaan ku noqonnaa ka horeysay waxaan ognahay intan horeysay koobi ayaan leenahay waxaan git markan hard ayaan raacinayaa kabacdina commit-ka ayaan gelinayaa hardka wax kala qabamayso waxay qabanaysaa unstation ayay ka dhigaysaa oo resetkii unstation-ka ayay sameynaysaa haddana waxay sameynaysaa git checkout ayay sameynaysaa file-kan oo ka saaraysaa meesha qoraalka ku jira ee dheeraadka marka labadii shaqo waa isku qabanaysaa reset hardkaas marka aad baas kaga hubinaysaa haddii commit-kaagan aad bushgaraysay oo github-ka u dirtay oo team kale ay kula isticmaalayaan aad baas kaga hubinaysaa khaladaad bay sabaysaa qaab loo xaliyaa jirta taasoo kale haddii laakiin aad ku adkaysanaysid adoo localka jooga oo faylashiina local ku yaalin inaad reset hard ku samaysid waa okay so hadda wax leenahay enter halkan wrong userku ka baxay halkan wrong informationku ka baxay marka qaabkaasna waa qaab aad u sameyn kartid oo aad uga noqon kartid commit-ka mar walbana waxaa ku dadaashaa faylasha isquseeyana inaad hal commit ka dhigtid oo haddaa feature login kusoo dirtay oo hal commit weeye haddaa feature wax ka saartid waa tusaalahaan kan oo kale waxaan leenahay stepkaasaan ka saaraynaa kabacdina waxaan leenahay fix typo qoraal baan saxay ama meel mataqaana sentence baan wax ka saxay saasoo kale dhihi kartaa kabacdina waa commit garaysay marka waa hal commit haddaynu login eegno commit cusub ayaa soo biirtay headkeena hadda wuxuu noo taagan yahay hadhow brancheska ayaan ku baran doonaa waxa ay tahay masterka aad iyo aad ay mahadsantihiin oo bilaahi tawfiiq